isku dayday markay aragtay laba gaari oo xaga ka soo cararay barta ayay isku dayday inay baalki shaariyowga ay riixayso saxad ku soo dhawaada channelkayga aniga magacayga waa Heraab dadka maanta ku cusub channelkayga xagan waxaad kala soconaysaa sheekayaal cajiib oo la yaab oo mysterious ah iyo waliba saluqada loo kala barto iyo tips kala duwan subscribe-ka iyo like-ga sheekadana marsha Ingo yalla dashay madilba saddex urugele madilba daymanka kan yar ay dadkoo dhan TikTok waliba gabdhaha ay ka heleen ka yir quruxdiisa oo ka yar leeyahay waaron marka la yiraahdo walaal maxaa quruxdu dayn kasto la yiraahdo waxa ma tarto hadana wax way tartaa ay dad badan ka yar imika hashtag loo sameeyay support loo sameeyay marka kan yar waxa soo dhan loo sameeyay sheekadiisa bal la socono makarunba mise kan yar waa nin khaatib sida la sheegayo mise waa ku yaro miskiina la soo sheekada كير his early life أنا كصاب بلاون وكير مجلس وكاميرون هيرين إسقي والكي محوها بتريستن هيرين وحي كودرشين مجال تكساس إسقوا حودرشين لبعض يكونوا والكي نحكي وينا لبصنا حاجة سيكونوا لاين إلى أن تسقوا جاري شنجر لبعض يكون شنتي والكينا تدو بتشير وين لبصنا كوينا هو يدي أياش شقب في عن أي كشيء ستيت كأمرين كويا لفلوريدا مركا إن لبعض يكون شنتي أي فلوريدا أي فاميلي جوردن أي أجورين أي كوكاسبنادين مركي أي أجورين ayay hooyadii shaqadii xaakasii wadata iyaguna de mujtamac fiican ayay galeen oo family lacag iska haysta ayay hayeen oo waalidkuna wuxuu ka soo qalin jabiyay soo dhigtay laba jaamacadood oo si fiican loo garanay ta horeysa waa Harvard University ta labaadna waxa weeyaan Columbia University oo ku taala magaalada New York hooyadu markaa shirkad aad iyo aad u muhiim oo cajiib ah ayay ka ahayd vice president aabihina wuxuu ahaa videographer iyo dadka videoga hagaajiya video محوها editor أيها بهنا ما كا وحنا كريا family وحيان لعج إسكا هيست أو مجتمعنا الله احترامه أو church كا كنيسة ضعيف تجي شرين أو دين تودنا وإسكا هيستين ما كا كريا أنت هيدا family ولا شودو إسكا إيمان يد إسكا لعج وحفي عم بإسكا هيستين ما شاء الله حبا ما يواجهين family وfamily نعم وحي هيان dadku ay ku hawaawiyaan inay gaaraan martabadooda kale ay gaaraan marka kan yar saan ay sheegay families ka haysta wax kasta ay hayeen oo ka yar dadkoo dhan say ku sheegeen isagii iyo walaalkiiba say ku soo koriyeen labada waalid diintooda iska haysta dagaal ha noqdaan kii diintooda iska haysteen oo waxayna hayeen like good for the community naam shacabka iyo society la nooyihiin ay aad ay ugu fiicnaayeen naam kaniisada tagi jireen churchka waxay dadka ay saacidi jireen muxuu ehelkooga familiga naam wuxuu qof wiil baariya qaban lahaa noloshiisa labada waa lagu garanayay oo family-ga ma ahay dadka society-ga oo dhan wax kasta way wada faaniyeen oo laba xumaan laga ma arkin ciyaar reckless wali waxaan ahayn ka gaariga ay sheekadu ay ka dhici doonto ma ahay wax kale oo inanka yar iyo walaalkii lagu arkay noloshooda ilaa imika haadan waxba kama dhicin oo noloshooda waxay hayeen oran karayo kale perfect sons within perfect hada inkastay kelmadda perfection ba wax beenbeena tahoona ku iska dhaadhicino laakiin haddana sa shicibku ay laayimka sheegayaan perfect ayay wada hayeen labada caruur oo dhanba marka keen noloshiisu waxay si fiican iyo lacag soo socota 2018 keen noloshiisu isbedeli doonta curvedan ayay lahaan doonta laba cisho kabacdi markuu ka qalin jabiyay high school ama dugsiga dhexe uu ka dhiganaya meel la yiraahdo private catholic school waa school lacag ay ka dhigtaan dadka diinta masiixnimada haysta oo diinta iyo iskuulka caadiga way ku dhigayaan ma garatay laba cisho kabacdi ayuu inankii yaraa maalin ay tageen waxay tageen gymka isaga iyo walaalkiisa weyn Muhammad Tristan iyo mid best friend ay hayeen oo magaciisu uu ahaa John Barino saddexdooda subaxii wasaqeen sida dhalinyarta sidoo kale ay sameyn karayaan subaxii iska kacay waxay tageen gymka iyo wada tageen way soo ciyaareen ciyaaraha birta markii dambe isaga oo wata gaari Black Ford Mustang isaga iyo walaalkii ayuu ninkii saaxiibkii John Barino ay tartan gaariya la sameeyay saaxiibkood wuxuu watay Nissan labada walaalna waxay wateen Black Ford oo gaari qaaliya ay hooyadood soo iibsatay marka dikada ay ku sameeyeen waa dikad waxay ahayd magaalada xagaan Florida ku dhex taala oo la yiraahdo Bayshore Boulevard magaca iga sax dadka Mareykanka jooga kale iga sax magaca please Bayshore Boulevard ayaa la dhahaa marka dikada xeerka speedkooga amba surcadda markaad gaariga wadid waa 35 ilaa 40 inaad dhaaftid ma waayo waa meel xasaas sensitive ay dadku socdaan subaxna way ahayd dayta marka dadku iska socdaan caruurtu bay iskuulka tagaysa noloshu way iska socotaa you know what I'm saying marka iyagu waxay ku socdeen surcadda amba speedka 60 per hour ayay ku socdeen marka surcaddii loogu talagalay limitkii waxay dhaaftay 20 iyo qadaadiic
ya subaxii markay ku tartankii xagii iska wateen gabadhan ay sheekadu ku dhici doonto magaceega oo iyadoo baaflaatan jiray dhimatay head magaceega oo ah Jessica Reisinger maalintii 3aad bishii 5aad 2018 iyada waxay ku siday beelmahayga ula socodka mu baranaan jeclahay baasha ilmaha ku riixan dadku ma garatay banaku French waxaan oranaa shaaqiyo baan oranaa ayaysa sama garan waxa la yiraahdo wallahi batalaay iyo ku riixasay marka waxa aragtay laba gaari oo spearkii caadiga ma ahay limitki dhaafsan oo xoog soo socday aragtay waa hooyo Soomaad garan marka ilmihii baasha lagu riixayay iyo isku dayday inay ka bixiso gaariga meesha socdaan laamiga ay iyadu isku dhigtay nafteeda ilmahayga sacrifice ayay u sameysay laakiin markay riixday ilmaha baalkiiba gaarigii ilmaha yar nasiibkeega ka xumaaday ilmihii may dhaafin laamigii oo may fulin meeshii caadiga markaa labadooduba gaariga way wada jiireen marka isaanta waxa la geeyay takhtar ayaa la geeyay ku yaala isla magaalada xagga xayga ku dhex yaala ayaa la geeyay oo la yiraahdo Tampa General Hospital ayaa la geeyay iyada oo bacda galin markay ku dhex jirtay ayaa la sheegay inay dhimatay baynateedana waxa la geeyay takhtar local oo magaalada ku dhex yaala ayaa la geeyay iyada dhaawac ayay aad u lahayd laakiin khatarta runtu hooyaday gaadhay waayo way riixday gaariga waqtigii fiicnaa inkastay ay gabadhu ay dhaafin khatarta runta laakiin khatarka ay hooyadeed gaadhay way ka yar fiicneed so marka iyadnaba gabadheena takhtar loo kala la geeyo magaalada ku dhex yaala in galin ay ku dhex jirtay markii ayaa la sheegay inay dhimatay waa 2018 hooyadu waxay dhimatay 23keegii gabadhuna waxay dhimatay 25kii bishii 5aad marka sheekadan dhacday dadkii newska iyo dadkii arkay la witness ayaa jiro waa meesha waxay xaafadada la iska dhaxgalo meel cilla ma yahayn marka witnesskii waxay yiraahdeen walaalihii marka sheekadii dhacday way dul joogeen naxdin daraadeed kamay dul tagin ma garatay laakiin askar iyo waxa lama helin familyguna markii dambe siinka ay imaadeen oo labadooda jeelka ayaa la galay jeelka weyn ma ahayn jeelka aad caadiga ayaa la geeyay oo marka waalidku waxay ku soo furteen waayo qofka marka ay askartu ku haysan dibadaha wasada askartu case-kooga uu buuxin ay ku haysan qofka daliil ay ku xukmin karaan sida imika isagu isa sheegay daliilka la helay waxa jirin waxa la geeyaa jeel yaro caadi la geeyado markaana waxa la siiyaa lacag beel oo lacagta hadaad bixisay waad soo furanaysaa qofka jeelka kaaga dhex jira marka lacagtu waxay ahayd $5,000 aan jeclahay $5,000 ayay ahayd marka way bixday waalid iska haysta lacag ayay hayeen 5,000 ayay bixiyeen marka labadiiba waa la soo furtay oo noloshoodu si caadi ah ayay u socotay ilaa intay isbedeli doonto ay keesku laakiin iyagu noloshoodu iska sii wateen laakiin askartu ma iloobo soo waxa dhintay so innocent people laba qof oo bari ah oo waxba dambi lahayn ayaa dhintay marka keesku cold may noqon cold case waxa la dhahaa marka keeska la waayay daliil ay askartu iska xidho cold case may noqon inkastay galin yar waqti ay heed laakiin hadana askartu way shaqo way wadeen oo si kalba u soo helaan daliil ay sugu xiraan sheekada wixii dhaco dhan oo isna uu sheegto wuxuu qarto ilaa markii hore muu qaran ayay inkastoo naxsanaa ay hooyadiiba sheegtay inuu wiilku ay maqli jirtay isagoo ooyay bacda incidentkii dhacay isagoo ooyay gurigiisa ku dhex jira ay sheegi jirtay islaanta hooyadii laakiin hadana wax daliil lagu xiro lama helin ayay ahayd askartu keer 3 shay ku xukuntay ka horeysa vehicular homicide waxay ka dhigan tahay marka dhimasho ay ka masuul tahay ama ay ka dambayso gaari waditaan talabaad reckless driving waxay ka dhigan tahay adoo gaariga si waalan amba sidii loogu ka talagalay si kale aad wadid takalena waxa weeyaan street racing adoo tartan ku qabtay meel aan xeerkaga hayn oo shaarica amba laamiya ku qabtay keeskan waqti dheer way la daalay familigu imika wiilka inuu jaamacada xilliga uu ahayd imika jaamacada inuu waxay sanadkii 3aad dhigto oo khalaas imika sanadka soo socda uu ka qalin jabiyay laakiin hadda nasiibkiisa ka xumaaday keeskan marka askarta Florida iyo askarta way la soo daaleen 3 sano waa waqti dheer inkasta laga sii dheeraa hadana deema yaro you know what I'm saying maalintii hearingka ee maxkamadda soo joogsaday dhaweedna hearing aad u dheer oo judge-kii odagii maxkamadda ka siisay kuwa hadalkiisa soo qaadanayo it's impossible to have a greater harm than occur in this case dhicintaan ka dhaawac badan tani aan ku aragnay keeskan weligeed inay dhacdo
kama filayo amba ma dhici kara soo kale nacam markuu arkay uu dhageysiga badan ee odaga nacam ku adkaysay xogmiga inuu bixiyo oo horta markii uu horeysay ay family-giiba gabadhii weyday iyo ninkii qabayba ay soo istaageen ay gabadhii faaniyeen oo ilmaha yar inuu inanku isguursadeen ay faraxsanaayeen wax kasta nacam dee qeyro ay hundhuka isla dhaceen ay wax kasta sameeyeen soo daafacaan waayo waa qof baa ka dhintay iyaga keerda ku daafacaan inta badan TikTok laakiin keer bari ma is not innocent marka reerkii badan waxay hadal badiyaan hadana waxay mid reerkii waalidkii inankii yaraa iyo shicibkii jaarkii oo ka sheekana kale inuu ku yaro waligii mujtamaca u fiican wax xumaan uu sameeyay dad qof u geesan ay maanta nacam waxay dhalinyarnimo u geysatay iyo ku yaro walidee qof adult baaliga ahayn ay u geysato maskax la'aan ahayd inuu askar uu caafiyo judge-ku wax kasta markii hadal la wada dhameeyay ayuu markii dambe judge-ku qaatay inuu ka yar 24 sano uu ku xakumo jeelka marka kaayar wuxuu soo bixi doonaa isagoo 45 jir sanadkay tahayna wallahi ma garanay xisaabiyaan xisaabta ma jeceli 45 jir ayuu kaayar adduunka insha Allah usoo bixi doonaa marka ninku daawadayaal commentiga igu sheega maad u maleysin ka yar muu qalmaa mise uma qalmo see you later subscribe ka saara video kalena la socda channelka